بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشر كيني أفراد مسكحة ما أنتو وحان كسو قادن دونا ألبرت إنشتيان in the brain. أبريل 18 كون سقال بقول كونتن إشنتي أيو أدنتي عذرك أبورت أورتا waxaa loo qaaday isbitaalka Mercury in Princeton markii uu cudurkaas soo wajahay isbitaalkaas oo ku yaalay magaalada New Jersey ee dalka Mareykanka dhaqaatiirta xilligaas gacanta ku hayay shaqada isbitaalka waxaa ka mid ahaa Dr. Harvey waxa uu ku fikiray in uu baxsado maskaxda Albert Einstein maadaama uu ka fikirayay in maskaxdaasi ay ku jirto waxyaabo aad u mug weyn Albert Einstein waa kuma Albert Einstein waxaa lagu sheegaa inuu ahaa aabaha fiisigiska ee qarnigii 21aad iyadoona la sheegay inuu ahaa hal abuuraha qarnigaas dhaqaatiirta isbitaalka ku sugnaa xilligaas waxaa ka mid ahaa Dr. Thomas Harvey waxa uu ku fikiray markii uu dhintay Albert Einstein in uu la baxo maskaxda Albert Einstein laakiin waxa ku adkaatay ceeb la noqotay in uu ninka maskaxdiisa baxsado asagoo ceeb u dareemayay maadaama uu ninka maskaxda iska leh ama Albert Einstein uu caan ka ahaa dalka Dr. Harvey waxa uu fikiray si dhaqso leh waxa uu go'aansaday in uu baxsado maskaxda waliba asaga oo aan cidna u sheegin ama aan cidna kala tashan muddo 7 saacadood ah kadib markii uu dhintay Albert Einstein ayuu la baxay maskaxda waxa uu furay ama qaliin ku sameeyay lafta maskaxda ee loo yaqaan iskaal waxa uu kala baxay maskaxdii iyo labadii indhoodba kama hadleeno Dr. Harvey sida uu booliiska isaga badbaadiyay laakiin waxa aan ka hadleynaa maskaxdii la qaaday ee Albert Einstein taas oo cilmi baaris dheer lagu sameeyay Dr. Harvey maskaxda waxa uu ku riday sanduuq isla markii uu baxsadayba waxa uu ku daray maadada loo yaqaan vermin taas oo ka ilaalisa bakteeriyada burburisa jirka bini'aadanka Dr. Harvey waxa uu maskaxdii Albert Einstein qarnay muddo ku dhow 7 sano iyo bar waxa uu u soo bandhigay cilmi baarayaasha muddadaas kadib waxyaabihii ay sheegeen cilmi baarayaasha ama waxyaabihii ka soo baxay maskaxda Albert Einstein waxa ka mid ah qodobadan kow maskaxda Albert Einstein waxa la sheegay in IQ-giisa uu aad uga sareeyay kan dadka caadiga ah normalka dadka waxa lagu sheegaa 90 ilaa 110 halka asagana uu ahaa 160 ilaa 190 qiyaas ahaan maskaxda Albert waxa ay noqotay mid ka yartan dadka kale markii loo fiiriyo dhinaca xajmiga laakiin qaybta bidix waxa ay ka weyn tahay 15% maskaxda caadiga ah ee qaybaha bini'aadanka cilmi baarayaashu waxa ay sheegeen qayb muuqaal ahaan ka maqan maskaxdiisa oo lagu magacaabo Sylvian Fisher ama waxay uga maqnayd qaybtaas anatomical ahaan waana qaybtan aan hadda falaarta ku tilmaamayno waxa la sheegay qaybta qaabilsan maskaxda duqnimada ama aging in ay ka maqnayd Albert Einstein qaybtaas sidoo kale waxa lagu magacaabaa Libo Fisher waxa la sheegay asagoo 76 jir ah in uu u fikirayo sida qof dhalinyaro ah una maskax badnaa Dr. Thomas Harvey waxa uu maskaxda ku aruuriyay shan sanduuq sida aan hore ugu soo sheegnay halka aad hadda ka heli karto maskaxda madaxafka caafimaadka iyo daawooyinka caalamiga ah ee ku yaala dalka Mareykanka dhakhtarkii qaliinka ku sameeyay Albert Einstein waxa uu geeriyooday April 5 2007 cashirkeeni maanta intaas ayaan ku sameeynaa waa mahadsantihiin